علماء الدين كأهل السنة والجماعة كسوغان مقالة مقدشة أيا وحا أي شيغين إن أي كفير سنتونان حريركا كلا دحية الدولة الدحية ودنك سوماليا نمعة محمد بشير أيا وربحنتا كسو درتي مقالة مقدشة شيخ عبد القادر سومو أفيانك علماء أهل السنة والجماعة أيا قدوميها أهل السنة قبل كبنادر شيخ أحمد شقل oo si wada jira shir jiraayad oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ku cambaarayay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyay xarig dhawaan Muqdisho loogu geystay Sheekh Cabdi Qaadir Soomo kaasi oo sida ay sheegeen uu ka dambeeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka dii madaxweynihii intaas ilaa maanta oo nan jawaab ka bixinin waxaan ku qasbanahay inaan arrimahaas u gudbiyo hay'adaha cadaaladda abukaatana qabsado intaasna waxaan xeerinayay oo dhowraayeen oo dib ugu dhigaayay maadaama madaxweynaheega yahay sharaftiisa qiimihiisa aan wada leeyahay aniguna aanan ogeynin warka laygaga soo sheegay ee uu ahaa war oo ii sheegay boolisku oobigana lagu qoro ka xumay madaxweynaha oobiga lagu qoro tilaabta uu qaado laakiin hadii madaxweynuhu soo laabtay 38 maalmood maanta laga joogo 14 ilaa maanta la joogo joogna madaxweynuhu una ka bixin cidii xirtanaan la xisaabtamin anigana aan raali gelin laga siinin waxaan u arkayaa falkaasi marka sida loo sheegay inuu u dhacay waxaan ku qasbanahay inaan hay'adaha garsoorka maadaama aanu shakhsi ahay muwaadin ah Soomaaliyeed aan u gudbiyo cabashadayda dib u eegaynaa wada shaqeynta dib u eegaynaa sida dawladdu ay uga jawaabdo waxyaabaha madaxda u sarreeyay ay sameynayso ayaan kula dhaqmaynaa waan ka fiirsanaynaa xiriir boqolkiiba boqol aan lahaynay kalsooni boqolkiiba boqol aan lahaynay wada shaqeyn boqolkiiba boqol aan lahaynay waxaan ugu amaal gudeen boqolkiiba boqol xumaana taa daraadeeda hadda fiirs baan gelinaa dhibkii shalay ka dhacay Beledweyne waa ka tacsiinayna aad baan uga xunahay waxaa jirta dhaliil ah dawladdu khatarta lagu dhex jira way ogtahay marka iyada dalka liidarka ah khatarta jirta iyo tensionka iyo dareenka ummadda la siinaya way kala fog yihiin waxa loo baahan yahay ummadda in lagu baraarujiyo khatarta jirta si joogto ah si ihmaal dadku ugu leedahay maalin kasta dhibaato noocaas goobaha la isugu yimaado meelaha laga shaqeeyo publicada maxaa la yiraahdaa basaska meel kasta la isugu imaan karo lagu laayaa dadka marka waxaad moodaa inay maqan tahay baraarujintii dawladda laga rabay inay ka bixiso khatarta jirta dadku ku dhex socdo ku dhex nool yahay dhanka kale ehelada dhalinyaro la sheegay inay u xiran yihiin dawladda federaalka ayaa ka codsaday madaxda dawladda in si cadaalad ah ay sharciga u horkeenaan caruurtooda oo xabsiga dhexe ku xiran maalintii 59aad waxa la qabtay ciyaalkaas waxay xiran yihiin maanta 59 casho ay maanta ay u tahay intay xiran yihiin wax lagu qabtayna oo faldambiyada gacanta kula jireen anu ma maqal mana ogi deegaan ahaan hadii la weydiiyo wala weydiin kara cadaalad waa lagu raadin karaa ciyaalkaas waxay ku xiran yihiin cadaalad darro iskuulkay dhiganayeen oo dhibka aan uga bixinaynay oo aan heli karin waxa uu nagu noqday culays nagu noqday mid hadda mataqaana goobashadoodiya markii aan daba galnay oo waxa ay ku xiran yihiin balraadiye aan siniri iyo mataqaana garsoornimo ninka aan u tagno garsooraha ugu tagnay wuxuu yiri waxa xiray madaxweynaha iyo wuxuu xiran yahay ra'iisul wasaaraha ka raadiya anaga waxba noo soo raadin meesaan dhibkaasaan haya waxaan doonaynaa cadaaladda in wax looga arko oo wixii wax garto oo Soomaalnimo ku jirto wadannimo ku jirto ciyaalkaas lagu soo celiyo dhibkii iyo wixii mataqaana laga galayna xaqoodii la waafajiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya anaka codsi u direyno codka habeenka ku hadlaay waxaan ka codsanayaa in cunugaas ee marqaati iyo magag oo lagu waasan yahay in banaanka noo soo istaajiya ee afarta cunug ay arday yihiin laba kamidna ay yihiin agooman oo maanta ilmaha 10 door iskoolka ka dhiibeen ma heesan anaka dad masaakiin aan ahay war teenaha noo la yeelo ilmaha hadii oo xaqiiqo lagu hay maxkamadda la soo saar hadana xaqiiqo lagu yeelin ilmaha banaanka la iska soo istaajiyo نمعة محمد بشير سومالي جنرال مقالة مقدشو علماء الدين كأهل السنة والجماعة كسوغان مقالة مقدشة أيا وحا أي شيغين إن أي كفير سنتونان حريركا كلا دحية الدولة الدحية ودنك سوماليا نمعة محمد بشير أيا وربحنتا كسو درتي مقالة مقدشة شيخ عبد القادر سومو أفيانك علماء أهل السنة والجماعة قدوميها أهل السنة قبل كبنادر شيخ أحمد شقل
oo si wada jira shir jirayd oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ku cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyay xarig dhawaan Muqdisho loogu geystay Sheekh Cabdiqaadir Soomow kaasi oo sida ay sheegeen uu ka dambeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii madaxweynihii intaas ilaa maanta oo nan jawaab ka bixinin waxaan ku qasbanahay inaan arrimahaas u gudbiyo hay'adaha cadaaladda abukaatana qabsado intaasna waxaan xeerinayay oo dhowraayeen oo dib ugu dhigayay maadaama madaxweynaheeyga yahay sharaftiisa iyo qiimihiisana aan wada leeyahay aniguna aanan ogeynin warka laygaga soo sheegay ee uu ahaa war oo ii sheegay boolisku oobigana lagu qoro ka xumay madaxweynaha oobiga lagu qoro tilaabta u qaado